haweenka Soomaaliyeed waa ay ka soo baxeen kaalintoodii si weyn ayuu uga hadlay arrinta madaxweynuhu dhaqdhaqaaqa iyo dagaalanka nolosha bini'aadmiga kaalinta ay haweenka Soomaalidu ku lahaayeen waxaana hadalka uu madaxweynuhu soo jeediyay bishii September 1972 gabdhaha Soomaalidu taariikhiyan haddii dib loo raaco maxay ka tareen xoreynta dalka soona socday muddada dheer waxaan moodayaa ilaa 3 sano waqti hadda wax yar ka dhiman yihiin waa aynu ka hadlayno laakiin mooyi inaynu si buuxda inaan u sheegnay iyo inaanu qarjibinaynay xaqiiqdii waxaan leeyahay waa qarjibinayna si buuxda weligana omaanaan sheegin anna hadda galabta uma sheegi karo sida xaqiiq lahayd maxaa wacay inta aynu ka xusuusannahay waa ka badnaayeen dadkii ka cayaaray oo haweenka ku magac lahaa kana cayaaray xudunta weyn qaybta libax ka qaatay xoreynta dalka ama dhismada dadka Soomaaliyeed way ka badnaayeen waxaan halka ku koobi karno waxaan ka xusuusanaynaa haddaynu dib u raacno markii ay ku dhalatay dad Soomaaliya sidaan bilowgii evolutionkeennaba amaba kacaankeennaba aan u sheegnay kuwii ilaahay khayr ku soo dejiyey ahaayeen oo Soomaali midnimadeed iyo xornimadeedba fikradoodu ay markii hore ku soo dhacday ilaa maalintaas ay bilaabatay ilaa maanta tan joogno gabdhaha Soomaalidu dagaalka waxay ka qaadan jireen qayb libax waxay uga qaadan jireenna siyaaro nooc kala gedisana dagaal caddaan ah oo ka wajiyana waaba calaamadeedii cad baa taallo oo waayada aynu ku xusuusannay xawo taako taalada halka aynu ka taagnay calaamadeedu taa markii ay tahay siyaasad la sameeyo oo lagu gaaro danta laguna baaba'asho qidooyinka foosha xun oo cadowgana runtayda weeye kuwii joogay baan anugu ku jiray iyagaa ugu meesha ciriirigaaba la gelin jiray oo siyaasadda samaynteeda cadowga midka ugu qurmuun ama ugu fool xun amaba ugu cadowsan haddii la yidhaha danta Soomaaliya raadinteeda amaba dhagaxii dhagax ugu weynaa ahaayeen waxaa loo duwi jiray oo laga horgeyn jiray gabdhaha Soomaaliyeed iyaga ayaa lumin jiray daafacaadda mabda'a la doonayay oo xornimada ah xaqiiqdii kuwii aad u daafici jiray iyagay ahaayeen xoradooda iyo xooggooda iyo xirfadooda iyo daafacaadda runta ah oo cadaawadda ama in dadaciblaha oo hawd ah oo isku lumo ama in laga warkeeno oo marba qidadii ay damacsan yihiin ama wixii sida iyo miyaanada ay damacsan yihiin ay ka warkeenaan runtii gabdhaha lagu aadin jiray waxaa taasoo dhan ka weynaa ragganagu marmar waa barriban jirnay inkastoo ragga geesiyaalo ay jireen una badnaayeen dadku laakiin fulay waa lagu jiray markay lagu alalaasaan baan dhaqaaqi jiro dib uma inaan soo noqon jirin dhimashada waa ogolaan waxaa ka sii weynaa waxaa Soomaalidu ku maamaada min calooshiis u diridaa yaa Soomaalidu ku maamaada calooshiis yani micnuhu haddii calooshu maran tahay waxba ma taro miyayan runtay ahayn miyaan kan bay sheegahayaa mar walba miyayan la ordi jirin gabdhuhu kirliga iyo jeegga caanuhu ku jiraan oo marka raggu dagaalamahayo aynan ku oontiri jirin kuna gaajo tiri jirin xaasha saasay ahaan jirta miyayan si kasta suufi xanjaa isku gunteene ama muufaha duwen miyayan baagamundada wadaniga ah oo shaqada loo diiday oo la duleeyey miyayan la suufi jirin oo iyagu ayaan u ururin jirin lacag u dooni jirin u ururin jirin iimaan la-aanta ugu weyn waxa weeye qofku wuxuu taray markii la xabaalo yaa aqoon ay ba'aan jabaan markaasaa taariikhdooda ay luntaa qofku wixii u taray waa in loo kiraa saasaa lagu istaajinaya